بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا wanaagsan dhamaan saaxiibada toos inagala socda YouTube-ka Maxamed Soomaali Tube ayaa toos u daawanaysan saaxiibayaal barnaamijka ciyaaraha taawo subscribe-ka program balelkaasi muuqaal walba inuu soo gelino toos idin soo gaaro saaxiibayaal ku daawan doontaan maanta hadii gula saamaxo waxa qayb ka noqon doona saaxiibayaal haleegii hore kooxda kubadda cagta Juventus oo dib ugu soo noqday kooxda kubadda cagta Juventus kadib ka soo tagista kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain Frank Lampard oo loo magacaabay macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Blueska Chelsea ka dhisan caasimadda London kooxda kubadda cagta Hegan oo duushay Rwanda sidee ay qayb galaan koobka CC Cup oo markii labaad Hegan ka qayb galayso koobkaasi qodobadaas iyo qodobo kale aad ku daawan doontaan hadii gula saamaxo anigu waa Maxamed Xuseen Salaad Maxamed Soomaali oo markaleeyo barnaamijka ciyaaraha markaal aragti cudoon aynu idin leenahay adeen qodobadeenu si gudo galno golayaashii hore ee kooxda kubadda cagta Juventus Gianluigi Buffon ay dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Juventus waxayna shaacisay gool haya Gianluigi Buffon dib ugu soo laabtay caasimadda Talyaaniga naadiga Bianconeri ayaa xaqiijisay in gool haya haliyiga ah ee Gianluigi Buffon uu dib ugu soo laabtay kooxda isla markaana uu goordhow u mari doono tijaabada caafimaadka The Old Lady waxay shaacisay sawirada xidiga Talyaaniga ah ee Gianluigi Buffon oo maraya tijaabada caafimaadka xarunta DG Medical Chelsea Frank Lampard ay u magacaawday macalinka cusub ee kooxda kubadda cagta Blueska Chelsea Lampard oo ahaa ciyaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda kooxda ayaa heshiis 3 sano u siixay kooxda Chelsea ayaa bixisay 4 milyan oo gani oo ku bixisay magdhow iyadoona Tobre Chidi Martinez, Kieran Jones iyo Shane Kevin sidoo kale Lampard ayaa tagay galbeed Lampard ayaa magacaabay kadib markii saaxiibkiisii hore Petr Cech loo xaqiijiyay inuu yahay la taliyaha cusub ee farsamada iyo qaab ciyaareedka kadib markii uu ka fariistay kubadda cagta halka Claudio Macalella la filayo inuu ku biiro shaqaalaha tababarka ciyaaryahankii hore Ingiriiska ayaa 140 kulan u saftay Chelsea inta uu joogay 13 sano oo kooxda joogay wuxuuna ku guuleystay 3 Premier League, 1 Champions League iyo 4 FA Cup kooxda kubadda cagta Hegan ayaa ku sugan garoonka diyaaradaha aadan Cabdulla International Airport iyagoona ku sii jeeda dalka Rwanda si ay qayb galaan tartanka CC Cup sanada 2019 wiilasha Hegan maalmihii ugu dambeeyay waxay diyaar garow xooggan ku jireen garoonka jaamacadaha ee degmada Hodon Hegan waa sanadkii labaad ay ka qayb galayaan tartanka CC Cup 2019 iyagoona hore aga qayb galeen sanadihii 15 iyo 14 balse sanadkan waxay ka muuqata diyaar garow xooggan oo laga filayo inay koobkaasi ku soo guuleystaan safarka Hegan waxa horkacaya xubno ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah maamulka kooxda Hegan sidoo kale Hegan safarkan waxa ku weelaya xidigaha kala ah Abdullahi Abdurrahman oo ka tirsan kooxda tikadaha Abdinuur Qey oo ka tirsan kooxda madbacada qaranka iyo golhaya Saciid Yamani oo Muqdisho City Club ka tirsan dhamaan xidigahan waxay matali doonaan kooxda ciidanka booliska Soomaaliyeed maalinta Sabtida ay kooxda Barcelona Football Club oo ka dhisan dalka Uganda wata saaxiibalantaasi aan ku soo afmeerna barnaamijkii ciyaaraha YouTube-ka wariye Maxamed Soomaali Tube ayaa kala socoteen guud ahaan barnaamijkan kiisi xana ka kulmi doona anagoo isku duubnadeen leh amaan Allah